jaaliyadda Soomaalida Koonfur Galbeed ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa waxay baroor diiq iyo tacsi ay u sameeyeen Allah u naxariistay 8 nabadoon oo dhawaan lagu laayay buur hakaba oo ka tirsan gobolka Bay. jaaliyadda Soomaalida ayaa waxay tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen 8 marxuum. ilaahayna waxay uga baryeen jannadii firdawsa inuu ka waraabiyo. jaaliyadda Soomaalida ayaa waxa ay sheegeen inay aad iyo aad ugu xun yihiin dhibaatada loo geystay odayaashaasi nabadoonada ahaa. meel kastoo ay joogto gaar ahaan qoomiyadaha ku dhaqan Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaanu halkan tacsi ugu direynaa odayaashii dhaqameedka ahaa ee ku geeriyooday halkaasi. waxaan ugu tacsiyeynaa dhammaan eheladii ay ka geeriyoodeen iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo qoomiyadaha haddii Ilaahay ku reeyay ku abtirsadoo sheegta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaan halkan waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya in ay si adag u kuura gasho dhibaatadan gaartay Soomaali weyn. waxaan aaminsanahay odayaashan inay waajibaadkoodii ay soo guteen. waxa alla mahadiya iyagoo hooshooda ku soo guuleystay si nabad ah ay ugu soo dhamaatay reerkooda ku socdo in la dilo ma ahan wax dhaqan Soomaaliyeed ah, ma ahan dhaqan gaala kuma jirto, diinta islaamka ma qabto. umana xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaynaa inuu arintan degdeg u baaro waxna ka qabto. shacabka Baydhabo inay isdejiyaan, buuqa iyo rabshada iska daayaan, midnimada inay ka shaqeeyaan, walaaltinimada ay fiiriyaan. waa ma kala baxsana banaadir marka xamar hargeysa kulli waa hal midnimada lagu dadaalo. kii ay ku dhacday dhibaatadu dadkii la laayay la dilay 60 jir baa ugu yaraa, 60 jir 70 jir 80 jir iyagoo jannadii Allah ka waraabiyo. annaguna way nagu dhacday, laakiin waxaanu Ilaahay mahadii aanu jecel lahay in aan ka codsanaynaa dawladda federaalka ah inay baarid ku samayso. baaridu way socotaa, annaguna waanu wadnaa. annaga oo gobolada shabeellooyinka iyo shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waanu wadnaa, baaritaanka waa wadnaa. laakiin dawladda waxaanu doonaynaa inay nagu garab siiso oo dadkii falka ka dambeeyay sharciga la keeno. waxay ahaayeen odayaal nabadoona, waxay waqtigooda u horeen oo ay u safreen waxay ahayd nabadeynta Soomaaliya iyo sidii xal loogu heli lahaa dagaalka aan dhamaadka leen ee 23 sano Soomaaliya ee dhamaan waayay. marka arintaasi waa arin aad iyo aad naxdin leh marka Soomaaliyeed iyo inay arintan ay investigation ay baaraan oo dadka mas'uulka ka ah la keeno maxkamad la keeno. sidoo kale waxay fariin u direen dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo ay ku sheegeen in ay doonayaan in sharciga la soo hortaago kuwii ka dambeeyay inay xasuuq u geystaan nabadoonadaasi. Zakariya Aadan, Universal TV, North America.